haddaba galaal wuxuu ka mid ahaa wakiiladii jamhuuriyadda Somaliland dawladaha jaarka qaar ka mid loo igmaday dawladda Itoobiya ayuu wakiil ugu ahaa xukuumaddii ugu horeysay ee xisbiga kulmiye ka dhalatay waanu isla garanaynaa shacbiguna way og yihiin dawladda Itoobiyana way og tahay wixii aad ku sifowday ee waxa weeyaan aad ku adahayd ee markii wakiilka lagaaga dhigay qiyamkay dawladnimada aanad ku metelin calankii dalka iyo sharaftii dalkana aad dhulka dhigtay ee adiga oo miyir doorsoon gidaarada dalka Itoobiya laga soo qaaday halkana lagu keenay taasoo ahayd mid aad qaranka sharaftiisa iyo aad ku dhaawacday isla mar ahaantaasina waxa weeye aad ku weyday shaqadaadii maanta ma ahayn inaad ummad soo hor istaagto waxna aad u sheegto laakiin waxa dhifays ka dhigtay meel ceebta u saaxiiba oo ay ku ururaan waxa weeyaan inta maanta ay dul hoganayaan jariimooyinka ee ku sifoobay waxa weeye akhlaaq darrada ee ummadda Somaliland oo dhanna aanay waxba ku darsanin inaad gabaad ka dhigatay umba taasina ay muujinaysaa waxa weeye ninkaaga ahaa sifooyinka noocaas inaad maanta intaad isu soo taagto aad dadka iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland aad tira talanu lascanood ku kordhinayna naftaada tala u baahan maantana kamay duwanayn marxaladii waxa weeyaan aad shaqadaada ku weyday oo kale uun bay ahayd ama aad ku sugnayd isagana intaasan